meelaha jaaliyadaha Soomaalidu ay sida weyn uga xuseen munaasabada 1 July ama 1 Luulyo ayaa waxa kamid ah wadanka Danmark aan idinku wareejiyo wariyahayaga halkaas inooga soo warrama Faysal Karate munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay 59 guuradii markii ay gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ay ka xoroobeen isticmaalka ayna ku midoobeen ayaa magaalada Aarhus ee wadanka Danmark jaaliyada Soomaaliyeed ku qabatay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen culamaa u diin siyaasiyiin iyo dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha wadanka Danmark munaasabadaas oo aad iyo aad loogu amaanay horumarka iyo waxqabadka dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay hawsha u wado munaasabadaasna waxa ay ku bilaabatay sidan ummad islaam oo meel walba isugu imaatay waxa haboon in lagu furo kelmadda isxasuusinta iyo isbaraarujinta Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر waxaan kala soo maray maalintii kala xuska u baahnayd 26dii oo maalintii calanka koobaad la saaray Somali dhulka Somali laga saaray 26 Juun ayadana waa xusaynaa oo ma aragtay waa ka gaari weynay marka labadii maalmoodba xuskoodii saas isku yihiin anigoo wiil yar oo 17 jir 18 jir ayaan hargeysa maalintii calanka la saariyay Mareykan uga soo noqday kaasa aniga aad ku abtirsanaysay calaamo wataay oo dadka leegada calaamay lahaayeen sida hadda calaamadan Soomaalida calankeeda ku dhagan oo dhinaca kaga dhagan taasoo kale uu lahaa ninka leegada taasoo isku soo dhigsan jiray magodo candadi golaha marise an malo hashi namande saldanad qadiima oo saldanadii Somaliland ah ama waqooyiga Soomaaliya ayaan ka imi waliba aabahay Sultan Maxamuud Cali Shire marka hadii joor waxaan iska dhigayay inaan bal dhexdhexaadiyo wixii fog aan soo jiido laakiin waa suura gal weeyday waxaan ku bishaaranayaa waxaan u dhimanayaa Soomaali weyn waxaan ku soo biiray Soomaali weyn awalan waxaan u ducaynaynaa Soomaalida xumaantu kala gashay madowga kala galay qabyaaladu kala gashay Ilaahay inuu isu soo celiyo oo qalbigooda mideeyo ayaan Ilaahay uga baryeynaa maaha ama arrin inaan tixraaco luqadda iyo dhaqanka iyo aqliga bini'aadankaba yaani wax looga faa'iidi karo arrintaasna waxay ku socotaa madaxda Soomaali maanta meel kasta ha joogaan inta mas'uulka inoo ah yaa waxaan ugu mahmahayaa shantii nin oo la daraabi jiray ama loo qabay xooga inay liitaan oo dadka ku hareeraysan ay u arkayeen niman doqoma ah oo walaalo ah laakiin geel badan aabahood uga dhintay 1 Luulyo waa maalin 26 ilaa 1 Luulyo waa maalin weyn oo laabta aan ku haynee ladnaanta aan ku jirniyo leedha iyo neecawda hurdada aan ladayni iyo farxadda 60kii baa dad loo laayayo wadaniyaal luxudka loo dhigay 1 Luul waxay tahay waa maalin aniga oo aad qaali u ah waa maalin oo inta weligeed inta yaraa hooyadii xasuus jirtay inay tahay maalin oo Soomaaliya xornimadeeda ku gaartay baad salaanta guud iyo mid gaar waxaan salaam guud iyo mid gaar u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliyeed ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay hambaliyo anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed ee Aarhus taanahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ummadda Soomaaliyeed hami badan baa galay oo xagga dawladda ah iftiin baa noo muuqda iftiinkaas waxaan maaragtay inaan gacan siino ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya xafladaas oo ku soo gabagabooday jawi aad iyo aad u wanaagsan Faysal Karate Universal TV magaalada Aarhus ee wadanka Denmark